Magaalada Gabiley waxaa lagu qabtay munaasabadda xuska maalinta dameeraha adduunka oo sanad kasta la xuso 8 bisha May. Munaasabadan ay soo agaasimeen maamulka hay'adda VS Germany ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland, dhakhaatiir iyo marti sharaf kale. Ujeedada munaasabadan ayaa ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta iyo xuquuqda ay leeyihiin dameeraha, kaasi oo qayb ka dadaalada ay hay'adda VS Germany ay ka wado gudaha Somaliland. Gabiley maanta waxaan ku xusnay maxaa la dhaday maalinta dabaaldega dameeraha adduunka oo maxay ku beegnay 8 May oo maanta ahayd waxaan ku xusnay Gabiley si weyn baan ugu xusnay ma sha Allah Allah ayaa mahad iskale maxaa la halkaas oo aan ka soo qayb galeen hay'adii maalgelineysay iyo maxaa la dhaday mashruuca waday iyo dadkii maxaa la dhaday iyaguna dhaqanayay ee ka faa'iideysanayay manfacaadkooda sida maxaa ay ku shaqaysanayeen oo maalka ku soo ridanayay iyo maxaa la dhaday hawlna caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha oo ka soconay oo aan kamid ahaa sida darteedna waxa la iska kaga hadlanay si loo yareeyo oo loo dabargooyo tacadiyadooda dadku ay u geystaan xilliyada ay dhaqamadkooda ku jiraan ay dhaqanayaan. maanta waa maalintii 8 May ee loo asteeyay xuska dameeraha adduunka. dameeruhu waa wax nool ah oo aynu manaafacadsano oo aynu adeegsano, marka waxa la isfarayay ilaalintooda iyo daryeelka sida loola dhaqmayo. waxaan maanta ka xusnay xafladaasi gobolka Gabiley. maanta oo kale 8 May sanad kasta waxa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda dameeraha. taasna waa ka duulayna waxaanu saaka anaguna ku xusaynaa magaalada Gabiley ee Somaliland. hay'adda VS Germany, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga iyo jaamacadda Golis oo iskaashanaya ayaa ka qayb qaadanaya xuskan. waxaanu runtii ka digaynaa tacaddi kasta oo dhan kasta ama jireed ama maskaxeed oo loo geysto dameeraha. waxaanu boorinaynaa ama dhiirigelinaynaa waxqabad kasta oo lagu taageerayo daryeelka, caafimaadka iyo ilaalinta xuquuqda xoolaha. Xamse Xayd, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.